السلام عليكم soo dhawaada asxaabta Ramadaan Kariim waa cashirkii 12aad ee kaga hadli doono barnaamijka Premier Baro casharadaas oo si fiiro ah uga baxa channelka waxa idin soo jeedin doona anigoo Xaydar maanta cashirkan waxa uu ku saabsan yahay color grading haddii cashirkeena guda galno waxaynu hore u soo qaadanay waxa loo yaqaan color correction waxaynu hore u soo baranay qaabka loo soco colorka saxda ah oo leeyahay muuqaalka aad hagaajinayso marka maanta waxaynu baran doonaa waxa loo yaqaan color grading oo uu yeeri karno color grading waxa uu bedelayaa qaabka uu muuqday muuqaalkaaga soo ka dhigaya qaab cajiib ah marka hadii guda galno cashirka markii aad furto barnaamijka Premier Baro waxaad tagi doontaa workspace-ka loo yaqaan color marka workspace-ka color loo yaqaan marka tagto waxa ku soo bixi doona waxyaalaha kan marka anigu waan habeystay my color workspace waad aragtaa qaabka loo habeeyo tan hore u soo qaadanay aniga kana isticmaalaya marka waxaan tagayaa elementary scope-kayga waan tagayaa kadibna muuqaalkan rabo inaan soo import gareeyo ama wax ka bedelo ayaan soo gashanayaa muuqaalkan ayaan rabo inaan ka bedelo marka waad aragtaan muuqaalka shucaac badan ayaa ku furan waxaan sameyn doonaa shaqada ugu horeysa aan qabanayo waxa weeye inaan sameeyo color correction waxa weeye wuxuu saxayaa muuqaalkaaga isagoo wax badan bedelayn waxaan tagi doonaa basic color correction anigoo la soconaya factor scope-kayga iyo waveform-kayga marka waxaan sameynayaa waveform-kayga waa tan hore soo sheegnay inaan ku celiyo mar rabo 100 iyo 0 inta u dhaxaysa ayaan rabaa inaan ka dhaxaysiyo hadii color correction soo loo sameeyo hore baan soo baranay marka casharadii hore soo fiiri hadii aadan garanayn waxaan sameynayaa black ayaan hoos u dhigayaa waxaan gaarsiinayaa xogaa 0 ayaan gaarsiinayaa weight-kana kor baan yara dalacayaa wax yar 100 baan gaarsiinayaa shadow-gana hoos ayaan u dhigayaa highlight-kana sidoo kale wax yar baan hoos u dhigayaa sidoo kale white balance-gana waan saxayaa meesha ugu cad ee uu leeyahay muuqaalkayga ayaan ku dhufanayaa waxa iga maqan bas toonkii waa saxay saturationkana waxaan ka dhigayaa 105 markaan saa u soxo color correction aan sameeyo waxaan sameyn doonaa waxa loo yaqaan color grading color correction ka aragtaan saaseen u saxnay wax yarba iska bedelay waxaan sameyn doonaa color grading talaabada ugu horeysa markaad soo sameyso color correction waxaad furi doontaa curves meesha ku qoran tahay kadibna waxaad furi doontaa RGB curves ayaa furi doontaa cadaankana ayaa geysan doontaa kadibna waxaad tagi doontaa box-kan ayaa tagi doontaa waxaan rabnaa inaan kala faano waxa uu sharaxayo box-kan ama calaamadda dhexda maraysa haddii aan xagga u badiyo waad aragtaan waxa ku badanaya madowgii halkan haddaad eegtaan waveform-keena madowga ayaa badanaya 0 u dhaafaya waad aragtaan haddii aan sameeyo kan aan soo badiyana xagga u soo jiido waad aragtaan waxa badanaya cadaankii marka waxaan sameynayaa S curve waxa loo yaqaan camal ayaan sameynayaa halkan ayaan point ka sameynayaa kana point ayaan ka sameynayaa kan wax yar baan hoos u celinayaa wax yar aan la fahmin kana wax yar ayaan kor u celinayaa aragtan S curve camal ayaan sameynayaa saasaan u deynayaa marka ka intaasan kaga tagayaa waa aragtan isbedelka ku yar yimi ka intaasan kaga tagayaa waxaan tagi doonaa aan ku xijin doonaa waxa loo yaqaano hue and saturation curve ayaan tagi doonaa waxaan isticmaali doonaa qaybta ugu horeysa box-kan ugu horeeya isticmaali doonaa waxaan rabaa color kasta oo kamid ah muuqaalka kaaga muuqdo inaan wax ka bedelo waxaan ugu horeysiinayaa green-ka ayaan ugu horeysiinayaa oo aragtaan wuxuu points ku sameeyay intii green-ka ahayd xogaa waad ku darsan kartaa kadibna kor ayaad u celinaysaa waxaan rabnaa green-ku inuu soo muuqdo aragtaan xogaa yar buu iska bedelay waliba kor sii geey intaasaynu doonaynaa marka saa dhahno misna waxaynu qaadanaa eye drop-kii waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno jacket-ka ayaanu ku dhufanaynaa waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno jacket-da wax buluuga ayaa ku jira xogaa yar buluuga xogaa yar ayaan kor u qaadayaa inta uu dakaa labaad ayaan qaadaya mar saddexaad waxaan ku dhufanayaa skinkiisa ayaan ku dhufanayaa
kan xagga ayaan u wadi karaa, labada dhinac baa u wadi karaa. xaggan way ku dhigay maaragtaan dhinaca kan iyo dhinaca kan baa wadi kartaa. marka dhinacuna ay tagaysaa waad aragtaan skin ku xogaa yaracsan ku jira. kan xogaa dibicini waad aragtaan intaasaan deynayaa kana. ma rabo inaan wax ku badbadiyo. intaa markaan sameeyo waxaan tegi doonaa creative meesha ku qoran tahay. halkan waxaad ka soo gashan kartaa lat aad adigu leedahay ama kuwa waxa ku jira default ah. salaam waa wax la diyaariyay kala grading lagu diyaariyay. waad aragtaan qaabkaas u bedelayaa. salaam matrix blue filmki matrix oo kale ayuu noqday. waad aragtaan matrix green. waad aragtaan marka noocaas ka dhigi kartaa. marka adii nooca rabtaa ka dhiganaysaa. marka inuu hadeer keena ayaan hubisanaynaa nan ayaan ka dhigaynaa. waxaan u gudbaynaa qaybta adjustment ay ku qoran tahay oo hoos xigta ayaan u gudbaynaa. kadibna waxaan socod doonaa saddexdan ayaan socod doonaa. kan hadaa ku kordhiso waxa fuulaya shucaca fuulaya. marka sidaas u deynaysaa. waxaan rabaa waxyaalaha kan aan wax badan taaban waayo saturation iyo vibrancy iyo waxyaalaha ku badan yihiin. wax yar ayaan ku darayaa. waxaan ka dhigayaa teedigaasaan ka dhigayaa. kana hore aan saturationka ugu soo kordhinay 105 ayaan ka dhigaynaa. saturationka hadaa ku badiso aragtaa qaabdaradaas u noqonaya. marka waxaan ka dhigayaa 105 ayaan ka dhigayaa. saasaan deynayaa. sharpenkana waxaan ka dhigayaa 5 ayaan ka dhigayaa. sharpenku macnaha wuxuu soo muujinayaa muuqaalkaaga ayuu si fiican ka dhigayaa oo wuxuu ka saarayaa shucaaci ayuu ka saarayaa. marka intaa dhamayso hal effect ayaan kusoo daraynaa oo loo yaqaano vignette. vignette-ku waxa weeye dhinacyadaas ayaan kusoo madoobeynayna. waxaanu ka dhigaynaa wax qurux badan. haddaad xagga kore u wado cadaan weeye waad aragtaan. waxaanu u wadaynaa xagga hoose waxaan badnayn. kadibna waxaan ka dhigaynaa tusaalahaan saasaan ka dhigaynaa. kadibna midpointiga ayaan ka kaxaynaynaa. macnaha intaasoo kale haddaad xagga ka hayso boqolkiiba wala qarinayaa. markaan waxaan rabnaa waxaan badnayn inuu geesaha ka soo galo. feederkuna waa dad saa dhahdo waad aragtaan toos ayuu u muuqanayaa. marka waxaan ka dhigaynaa wax khafiif aan la dareemeyn. roundness ayaan ka dhigaynaa. dad saa dhahdo afar gees buu noqonayaa. roundness ayaan ka dhigaynaa. marka haddaan ka qaadno waad aragtaan markaan kusoo deynina waad aragtaan qaabku noqday. marka qaabka ayaad u sameynaysaa. marka waxaan eegaynaa waxyaalaha iska bedelay muuqaalkeenii. halkan ayaan ka jaraynaa. markaynu ka jarno qaybtan waxaan rabnaa inay noqoto reset ayaan ku sameynaynaa. reset baan leenahay. qaabka hore ayaa lagu celinayaa. tanna way hagaagsan tahay. effectiguna tegnaa. kadibna waxaan ku qornaa wipe oo ah transition muujinaya qaabka wax isu bedelaan. waan soo qaadaynaa dhexdaas ku tuurinaa. haddaynu sii deyno waad aragteen inta isbedel timi. marka intaa dhamayso waxaad samayn kartaa inaad save garaysato wixii aad soo samaysay oo dhan si aad dib ugu isticmaasho. waxaan tegayaa qaybta effectiga leh. qaybtan tegima waxaan rabaa inaan ku bedelo. hadhow aad aragtaan effectiga qaybta leh ayaan tegayaa. kadibna waxaan ku dhufanayaa luminatory kala meesha ka hooseysa ama ka horeysa. kadibna waxaan leeyahay export look ayaan leeyahay. kadibna magac ayaan ku qoranayaa. meeshaan rabo ayaan dhiganayaa. tusaale ahaan waxaan dhiganayaa halkan okay ayaan leeyahay. markaan rabo inaan muuqaal wax u bedelo ama muuqaal wax ka bedelo muuqaalka ayaan dul tegayaa. kadibna waxaan tegayaa meesha ay ku qoran tahay creative ayaan tegayaa. meesha look ay ku qoran tahay ayaan waxaan leeyahay browse ayaan leeyahay. kadibna waxaan tegayaa meesha waxay ugu jireen. tusaale ahaan waxay ugu jireen kan ayay ugu jireen. xaydar ayaa soo baxay okay ayaan leeyahay. waad aragtaan muuqaalkiisa isu bedelay. wax ka duwan ma laha oo isku mid. marka qaabka ayaad u adeegsan kartaa markaad sameyso wax kasta. dib ayaad u adeegsan kartaa. waxaan rajeynayaa inaad aad u fahanteen ood ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxaynu ballanaa muuqaalka xiga iyo maalin kale.